بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga marna asxaabtayda qaaliga ah kusoo dhawaada YouTube channelka Zakiya Aadam. waxaan mahad u sugnaataa Allah subhanahu wa ta'ala. marka xigta waxaan u mahad celinayaa dhammaan asxaabta ku xiran YouTube channelka. waxaan idin leeyahay mar kale soo dhawaada muuqaalka loo khayrkiisa wato. insha Allah maanta waxaan sameysanaynaa sabaayad ama jabaati qofba suu u yaqaano. noocyada hore loo sameyn jiray way ka duwan tahay. haddii uu ku dhibaayo sida burka loo qaso oo loo xasho sabaayada ama loo fidiyo, qaabkan waa qaab kale cusub. insha Allah aan ka wada faa'iideysano. waxaa halkaan noogu diyaarsan hal xabo oo ukun ah saa u jeedno, sidoo kale koob bur ah. waxaa kaloo halkaan noogu diyaarsan caano oo aan inta kusoo qastay, koobkan oo kaleente oo bakeeriga shaaxa ayaan soo qastay. waxaa kaloo u baahannahay wax yar oo cusbo ah. cusbada iskama badineyno, cusbada shiidana weliba isticmaalaya aniga. sidoo kale waxaa u baahannahay saliid yar. marka qaabkaas ugu darsaneyno aan isla aragna insha Allah. marka koowaad waxaa ka bilaabeynaa ukunta ayaa jabsaneynaa, kadibna xoogaa waxaan sameyneynaa qajafta karaa la noqdayaa. mar walbana waa idiin sheega ani fiidiyada cod gadaalka ma saaro. ukunta marka hore waxaa sameyneynaa iyadaasaan xoogaa labeynaa. waxaan kaloo kusoo dareynaa intaan labeyno cusbadii waxyaar aan cusbo budo ama cusbo shiidana isticmaalayaa. xoogaa waxaa is dhex gelineynaa ukuntii iyo cusbadii. waxaan kaloo kusoo darayaa koobkii caanaha ahaay oo aan idiin sheegayay waan kusoo darayaa. labitaanka waa ka digi kartaa yaa wax muhiima ma aha. wax muhiim yani ma sameyneyso inaad sii labto. intaa anaa jecleysta camal inaa yani ukunta asas usii labo iyo caanaha markaa isku sii daraayo. waxaan kaloo kusoo darayaa saliid hal qaando camal iyadana. intaasaa si fiican isugu labeynaa. intaas markaa isku labnaa ujeedna inay isu keen dhex gashay. waxaan ku darsaneynaa burkii, kadibna waa qasaneynaa. mar gacantaan dhaqanayaa. haddii aa haysato waxyaabahan doorshada iyo lagu qasan waa ku qasa kartaa. anaga hadda gacanaa rabnaa. mar walba waxaa jeclaa dadka waxay wada heli karaan ama dadka waxay wada sameysan karaan inaan soo geliyo ama aan sameeyo. burka kiskisa ugu soo darsaneynaa. gacantaan dhaqanay. waxa dhan waa isku jamcin waa ujeedin gacantaa dhaqanay. gacantii aan dhaqday aan ka wadaa. sida caadiga ee loo qasto burka ama maxaan dhahnaa malawaxa, canjeerada, waxyaabaha sida loo qasto aan u qasaneynaa. kadib waa isku soo noqoneynaa insha Allah. asxaabteeda waa ujeednaa waa soo qasanay. indhu yeelin waa ujeedin wax meel la dhigay ma aha. isla markiiba hore laga dubayaa. saasaa la rabaa inuu noqdo. oo sida canjeerada iyo loo sameysto. mana la rabo inuu ka yeesho wax kuus ah. kale hadhow kaama muuqanaa markii aad dubaysid oo kaleente. marka dabka isla aadayna insha Allah iyo sida loo dubayo isla aragno. waxaa kusoo shubanay saliid xoogaa yar. ana qaandadaas ku dubanayaa aa ujeedin. adi wax walba waxay sida ku dubi kartaa. waa ku shubaysaa oo kaliya. iyada bislaanaysa marka. qaybta ugu dambeysa idin duubaya. xoogaa waxaa iska jirto buuq iyo halees karaal noqdaya. inta qaybta kore ee noogu bislaanaysa suugeena. marka qaybta kore ee noo bislaato qaybta hoose ugu dineynaa. jabaatigan ama waxaan ku jeclahay aad u jilicsan yahay. jilic waaye. saas uu ku soo baxay. qaybta ugu dambeysana hadda idin duubaya. waa ujeednaa sama markaan jarayaan fiiriye aad u jilcan yahay. kaaga daran markaa dubay sidoo kale inta jikada aad ay u carfaysaa. caraf waaye. yiriiriis waa xoogaa laakiin anaa yiriiriiska ugu talagalay. adaa doontid waa weyneysan kartaa. qasab ma aha sida aniga au yareysana u yareysatid. saa ujeedna qaybta kore hadda waa ciiriinka ama cajiinkii ama burkii wuu ka dhamaaday. waxaa uruganeynaa qaybta kaleente. aan aragna iyadana see noqoto qaybta kale. jabaati see ku taqaaniin markii mid kala fidinaayo oo la xashaayay burkiisa see ku taqaaniin saano kale inoo noqdo soo maaha. waa isla sidii ana yar kaana ku heystaa. mideeda labaad taawada aan ku duwanaya taawo yar ah
labadaas darteeda waxay yeeshin saan u yaraado taawadaada xogaa hadday fidsan tahay uu kula fidsama adigana qasab ma aha saana u yareysatid waxaan aad u jeclahay markii sida uu u jilcan yahay waxaa kaloo aad u jeclahay carafta jikada zaid oo carfaa ilaa ukuna ku jirtay caano booro meel ukuna caano booro ku jiraan caraf ma laga weynaayo qaybta hoose iyada inta nagu bislaanaysa sugeena markay noo bislaataan arkayna iyadana sida ay tahay هاي أصحابي قيبتي هوسنا واتنا سانا بصوب سلاتي قيبتي كالنتي ايه هداي كورنو جرتنا صالوada qaybood u aragtay inay bislaato way igu isaya duuristii iyo wixii kale isku keeni karo iyadana waa taas oo ujeedna maahano gudud waa iyadana aadeen u jilcantaa marka goosanayso idin tusay jikadan way carfaysaa caraf ukunta yaana booraha ani reer sabayd mi reer jabaati laakiin kisaan loo sameeyo reer jabaati aan noqdaa adina soo tijaabi hadaa ka hesho wixii ka khaldamay wixii ku saxmay commentiga igu soo reeb hadii ilaahay idmo hadana waxaan sameysanaynaa ukuntii markood ukuntaan jabsanaynaa saa u sameysan doono aad u fududaa runtii ana waa ka helay waxaa kaloo kusoo darsanaynaa cusbo yar oo cusbada shiidan ah waxaa kaloo kusoo darsanaynaa filfil oo aan soo tumay iyadoo shiidan hadaa heli kartana waa fiican tahay filfisha iska badinin 3 xabo camal tumo hadii yani hal xabo kala isticmaaleysid filfisha zaidka waa fiican yahay intaana waxaa sameynayaa waa isku garaacaynaa ama waa labeynaa sida isku dhasho waxaas midnimada waa filfishi kala ma aha si fiican u labaysaa kadibna waa dubaneynaa sida aan sameynayna iyo sida aan yeelayna asla socon insha Allah ukuntii oo diyaarsan taawada saliid yar ku soo shubo waa wareejiyay saliid badan ma la rabo saliid badan iska ilaali sida saliid badan ma fiicno afwan hadana markaas ukunta qaabka u sameynaysid iska ilaali saliid badan waxa sameynayna ukuntii oo qasan ama noo garaacan ayaan ku shubanaynaa waxaas midowga u jeedin waa filfishi waa wax kale ma aha ودوينا انتي اي كقلالة سوء سوبينا اللي بلبض لنا على رواية لنا عن هذا مكيب سلاتو اي قلشو لنا عكلا لو بدينا هذانا قيبتان وجدنا هذا اني قيبته هوس اي بسلاتي يعني حق فهمينا قيانكي درارية داي زايد او اها ما اها سامها حسمينا قيبت دنبا اروغينا هذانا زايد وعارفة ايضا ما انت عارف هيك شو انت شاشتك عارفه شاشتك قيبتان ضمن انت بسلاني ساسوينا كبسلاتان اركينا ايضا ukunti waatana taawada waa kasoo degsanay waxa sameeynayna ukunta waa laabeena ama la laabeena macna sida siriirka oo la laabeena waliba intay kula shay fiican taan xoogaa yara ka mashquulay oo iga qabowday xoogaa dhow garmash amal ay noqonay dib mar laba goor waa sameeynayna qaabkaas oo la laabeesa ukunta kadib waxa sameeynay waa jarjarey saasa inta jarayna aad u fududahay aad u macdahay kaliya waxa iska ilaalinaysa inay ka badato saliida hadii saliida ka badato ma cuni kartid ukunta inaad dabka ku haysid saacada badan ukunta waxa loogu talagalay ugu badnaan marka qaabkan loo sameeynayo dabka inay saarnaato 3 daqiiqo 2 daqiiqo meelaas camal loogu talagalay qaabkaas oo jaranayna ayada dhan waa dhameysana u jeedin sida marka waxay noqonaysaa oo kala baastadii camal u jeednaa mahano baasta camal egg noodles allah baasto dheer camal esas u noqotay ugu dambeyn saana ku soo sameysanay ukunteeni iyo chapatigeeni waxa idinka dambeeyay kaliya oo soo darsaday barbarooni aan si qafiif oo soo jarjaray iyo basal oo meesha uga dhex jeedaan xoogaa yar kabsar caleen oo ku soo quruxsaday barbarooniga iyo basasha hadaad jecleen in ciiriin ku cuntid xoogaa saliid yar tis inta ku siisid digsi ama taawo wax yar iska bislee basasha iyo barbarooniga
حد بس أجعش هستميسو لكن حرجينا يا موقال كان ناكهش إن شاء الله. سبسكرايب لايك شير كومنتي انت بحقين وامر البنو إذن لها موقالة وصوب بدنا يا مالمان مشغولاتك إيه استوا كبحي الحمد لله. أذن كان إلى دذالة أنه إذن دذالة يعني إن شاء الله. waxaan idin leeyahay muuqaalkiisa kale intaan ku kulmi doono anigu Zikiya aadan ah waxaan idin leeyahay fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.